faa'iidaystaan istarigu loo sheekay waxa ku jirtay in dadka iyo irsaqa waddankeena yaala isaga uu badan yahay haddana waa ka baahannahay qaarteena caawa halka fadhida browns weydiinaya sababtu maxay tahay maxaa keenay in irsaqulas faraha badan leynan sida abqacta ama ayadda ka muuqatada arkaysa ama baan historical ognahay irsaqaaba naga badan waayo aan uga baahannahay sababtu maxay tahay gabdhahan ku bilaabaya هذا العشور يسمى قصة قبلها قصة قف كستاد هذا يقول عشق على السلام سؤال هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال شدة كتير waxay la tahay horta Soomaaliya waa dad aad u wanaagsan firfircoon wax qaban karo adduunka xataa nagu yaabaa because meel kasta aan tagno we make life waa bedelnaa dadnimo darxumonimo ma aha inaad dad xubnaa ma aha laakiin waxaa naga maqan governance waxa waaye maamul dowladeedkii waxa waaye qaft sidii production waddanku u gaari lahaa oo ka gaari lahaa from point A to point B wuxuu u baahan yahay governance hadda waddankan maxaa horumariyo structure uu leeyahay haddii structurekaas haysan shacabka wax ma qaban karo marka shacabku waa inuu haystaa structure uu ku shaqayn karo inay jirto hierarchy xataa of maaragtay shaqooyinkii farsamooyinkii dadka in la baro in farsamooyinkii xataa inay jirto skill sets loo abuuro because haddii ani farmer ahay ama hadda ahay fisherman ahay ama hadda aan carpenter ahay ama teacher ahay farsamooyinka hadii aan la siinin ama la igu dhiirigelin ama la barin production level ma gaari karo waddankii marka we need waxa ka maqan waddanka waxa waaye governance idad wax yaqaano in hoggaanka qabto oo ummadina shaqo geliyo oo shaqaaleeyo marka haddii ummadii shaqo la gelinin production level ma la gaarayo xataa basiikan la sheegay hadda dhaysid uraniumka iyo waxaas waxa u baahanahay dad cilmigiisii qaaro oo lagu shaqaaleeyo laakiin haddaad tirahdid 4.5 oo heblo hala keeno qabiilkan hala keeno ninkan kale hala keeno ninkan waxna ma yaqaan so we still waxaan joognaa 0.0 aan joognaa marka waxaa loo baahan yahay in loo fiiriyo qabiil loo fiiriyo maxaa taqaanaa oona qoftana la saaro meeshay cilmiga ay ku taqaana la geeyo oo la yidhaahdo farsamadaada waxa waa A yudu A hadii biyaa sabeen adi siyada marka waddanku waa kacaya laakiin haddii wixii la sameeyay governance iyo structure iyo hierarchy iyo waxa arkaysaa nin ebic school dhiganin waxa uu dhamaa mareey guud waay kii cilmiga yaqaanana waxan ma haysto banaanku taagtaagan yahay marka waddankaas uu korayo ma kori karo marka I believe waxa u maleynaa number 1 ra'aanteeda governance in la helo iyo in la helo dadkii in structure loo sameeyo dawladdiina loo dhiso ama xukuumadda loo dhiso dad yaqaano oo cilmiga ay yaqaaniin ugu fariisiyo markaas waa mar waa gaari karaa salaam بسم الله الرحمن الرحيم شغل غير الله سيو سيكفي عني بجوابتي وحقدر لها runtii daacadnimada waxa la yidhaha maantay u malayn maayo Soomaali in ay aqoon ku yarta laakiin waxaan jirin daacadnimo waxaad arkaysaa maamul goboleedyada madaxweynayaasha siyaasiyiinta dadka maamulaya waddanka xataa isagoo ku yimi 4.5 ee aqoonti leh wuxuu amar ka qaadanayaa nin jaahil وربادية وما تقال وحكوا إمانا يا كابقبيل يا سؤال سحنا كابقبيل هو الجاهل مركزا وحال نكون يسا الكواليفيكيشن كاي أقوم تادي كرتدادي ضمن ملاني إنه هوستكتو قبيل مركزا وحال وهذا الدنيا ويجلس كذا الأولاد يعني ماشي كل نقول لها الأولاد وحال أركيسا شنطة في الصومالية سوتي من صاحبها وشيء كيسانيسا جنب وليرة دكتورة ساقبيل شنطة اسكوري مانيسا 4.5 كمان كيس السعودية وهذا نفس أقول لي دين لي نطلع لي واحد لي لكن مرك أدوين تكسكتها وتقف كسومالي سيدي سجع علينا وحنا بس بدوي زارج قبل كل واحد
ده حسيت النبي عليه الصلاة والسلام واحد عليه من باويين قال كمدها ما كان سوي كويري ما يلش سوري يعني أصحابته كفتميس وشيء كيسنا يدفعوا كفتماين نبى ماضي منافقين تي كمدها مركزو كشيء تاريخي وحصل مرة غير يبقى هذا هذا سنة دين بالجبن سنة دين بالجبن ليش وحين قلت إن أصحابتي سيفاي سورة بحاني بالله وأصحابتي النبي عليه الصلاة والسلام سبب بريء شو قبلك عجب لي أن كورا معنا ليش وحين قلت إن ناس بالانصور النبي عليه الصلاة والسلام كان يصير أنا اليوم ولد البيت سبحان الله بحيري وقلب هذا جوجي مركا هذا كيسا وأكون يشان بالصلاة والمسجد حتى الصومالي كسي لي التاع قبيلك وياقاس ما أنت ميتا ما أنت واحد يقول لك الله ما يوم بعرس ما أنت واحد يقول لك الله ما يوم تقني ما أهم سيفتي والشنطة في الأول سيفنا ما قبيلة مع الله هنا يوم مع الله هنا مركا I think إن أي جلتو داعمه يقبياله يعني أنا رسول شيء يعني وحلا لقيت كتاب كله ما لقيته معناها وحنا قلنا تسك حوالي وكلام مركا أغلبتك بديها إلهي حدث سؤال إن قف كستون من واجب كتها ذهب على قلب كهذا عرض إن واجب كتها إلى كف كتها هذا المقدر أو هنقدر هذا وطن دولة أسبوع السماء هذه نصيحة لك سندروا ورتوها كان مالك اللي هو محل لكن إن دولة قف وزارة استعداد بروفيشنال كان إن دولة هو أنا متعرف علامات بنك أركي يعني 2014 كما كان شغال وزارة البيئة وها عبد أحمد فتوافو أرضي دوكمدها فاو سو شقي نوعها ميلا بدن بدن عدو كسو شقي فاو خبرة وين بولها مركي لودي بيبا أنا قلت إيه FAO يجسي consultancy هنا advisor نقوله نيل lawyer سو سي لوكا شركة لوكا وسميه وحاسسه كان وحاس طبعا مشروع سي دبلوم مثل عبارة بان أنا وقرين كان lawyer كانوا قرين سدح مشروع وحاجة شركة iyada oo deeqayaashii kula jiro inuu ka iibiyo meesha uu tadawr bilood u joogo ayaa la bedelay nin wadaada meeshii la keenay ay sheegayso soo ma garan xanaanada xoolaha Salim Ibro professor veterinary isagana isla waqtiga markii wala wuxuu ahaa shaqo fiican uu ka hayay wasaaradda xanaanada xoolaha markiiba waa la bedelay marka haddii dad professional oo weliba yani anigu waxaan oran lahaa yani weliba dhalinyar yani energy baa loo baahan yahay odayaal haddii helaan advisors waa noqon karaan laakiin hadda waxaa loo baahan yahay in si wax loo fuliyo dad noo ahaa capacity saacado badan ku shaqayn kara ayaa loo baahan yahay wasaaradihii in dib loo soo dhiso inan la iska badin si 4.5 qola kasta wasiir u hesho wasaaradihii loo baahan yahay noo ahaa xoogga la saaro infrastructure-kii beerihii xoolihii kalluumaysigii governance legal system sidaas loo baahan yahay insha allahna ilaahay waxaan ilaahay ka baryaa in dowladda la dhisaayo ay noqoto mid noocaas insha allah adiguna haddaan nasiixa u diri kartaan u dira gabdhahu idinkaas kale marka qof kasta caawinaan maqalno ka faa'iidaysan والله كنت الوضع في حالي magacaygu ما يعقل waxaa waxay ku darayaa
dowladda la soo dhisayo waa kuma 4.5 hadda meel kale aan ka aadna mala at this moment laakiin waxaa jirta waxaan farayaa dowladda reer walba way leeyihiin qualified haddaad shaqada u qalma laakiin haddii 4.5 aad dowladda midaan aad tiraahdo reerkan baan ka soo qaadayaa waxaan kula taliyaa ku qualified ka oo reerka in laga soo qaado because taas unbaa la dhihi karaa qof community walbana way leedahay qualified people because waxaad arkaysaa reer laga soo dhahayo reerkan baa la siinayaa shaqadan laakiin kii aan qualified ka ahayn lasoo siinayo kii ahaana laga tegayo marka waxa way qualified people oo maxay tahay dhalinyaro oo shaqadaas ku tirayna waa most important in maxay tahay dowladda ay ku dhaqaaqo ta kalena waxa weeye cadaaladda dadka lagula dhaqmayo cadaaladda waa muhiim in dadka lagula dhaqmo dadkan waa dadka soo daalay civil war dhibaato isku kalsooni la'aan waxay u baahan yihiin cadaalad lagu wada dhaqmo midda labaadna waxa weeye in dowladdu ay slow u socoto inay ku socoto xawli aad u yar socda ay danaha tartiib ugu gudbi karayso ana intaasaan ugu darayaa insha allah khayr loo uga jeediyo waxa weeyaan horta waxaan markuu madaxweynaha maalin la doortay wuxuu ku hadlay wuxuu yidhi expectation oo degdeg ah inaan wixii ku xallino wadankii dhibaatada soo martay yaa laga filin waa runtiiso 25 sano 26 sano dadkii transitionka u samayn lahaa oo aan ka mid nahay annaga oo dowladda usoo shaqeeyay oo aan u gudbin lahayn dhallinyaradii kale nagu xigtay oo jaamacadaha ka soo baxay dibadda soo aadnay ama waa dhinteen ama waa ma joogaan wadankii ama waa hadday joogaan ma aqaan waxa كل ما waxaan meesha ku dhaqaa waa sida sheegaysa 4.5 laakiin dadkii dhalinyaradii oo waagaas wax baratay oo shaqeynay oo technocratka ahaa oo rabay wadankii marka si fiican u socday howlihiisa kastoo ay iska jiraan iska afrikaana laakiin system jira oo wanaagsan oo wasaaradihiisa u shaqeeyaan marka nisbad daro dagaalka markuu dhacay waa kala yaacay wixii dhan uu isku yaaceen 25 sano ayaa lagu jiray dagaal iyo problem iyo qabyaaladii soo noqotay aniga waxaan kasoo shaqeeyay waqooyi iyo bari ka waran yani ceeb bay ahayd in la yidhahdo qofka yaa tahay iyo yahay waxaas markaan maraykan iyo baa waxay soo baxeen kaas waa reer hebel kan waa wixii sii badbatay dad kale waxaa loo keenay qaxooti ah cirkaas ay aad marka ilaahay waxaan rajaynaynaa in horta waxaas dadka ay ka xishoodaan oo ay yidhahdaan waxaan waa ma soconayaan naga daaya balaayada aan walaalnimadeena iyo sida ay mataqaanaa aan wax usoo qabsan lahayn marka hadda maalin commentan waxaan ka sameeyey qof Facebook kusoo qoray dowladdan waqti halsi waxaan ku yidhi dadkii weli qaaraan nool waa joogaan waxay fiicnaan dadka qaarkood ay islaam oo kala professor uu sameeyay ninkuu sheegay waa ninaan isnaqaano oo wasaaradda beeraha loo dhiibay ardaydiisu ka mid ahaa 7 months markuu joogo wixii barnaamijka si fiican u kala wado waxaa laga yaabaa markii in la bedelo markii waa la bedelay waxaa loo bedelay wasiirkii waxaa la bedelay oo prime ministerkii la bedelay mid cusub ayaa yimid waxaa wasiir hore oo ahaa kan macluumaad mid kale la keenay mid kale wadaada loo dhiibay soo sheegay wasiirka safir professor wax soo noqday professor wasiir kulli oo soo noqday ilaa nin PhD oo agriculture soo bartay marka waxaan ka wadaa dadkii qaar wali nool fiican in saas oo kale loo gudbiyo madaxweynaha iyo dadka wasaaradaha loo dhiibi doono in ay barnaamijkaas oo kale loo gudbiyo ay arkaan ama ay dadkii ku noqdaan wadankii wixii ay tar karaan volunteer ku shaqeeyaan laakiin easy ma aha intii 25 sano dhaxda ka baxay marka waxaan rajaynaynaa in oo farmaajo horta hal qof kaligiis waa laakiin dad badan ayaa jira wadankii wali waa nool yihiin wali qaar ayaa jira inuu dadkaasi raadiyo oo yiraahdo war aan maxamed cabdinuur oo kale iyo groupkaas oo dadkii hore inuu kaalaya nala shaqeeya oo mataqaanaa waxa noo qabto wadankii aan wax u qaban marka waxaan rajaynaynaa in dowladdaani cusub ay at least dadkii soo ururiso wixii aqoon-yahanada ahaa dadkiina ay cadaalad la sameeyo oo aan ahayn kana reer hebel ah haddii uu rabo in wadanka la hagaago
وإن أنا سمعنا قبيلة 4.5 وإن لو شقيا qualifications and skills هدي اللي هلو ودن كانوا حقوق وصوق عيان specific سؤال mid baan ku daray aniga anigu waa tegay waddanka laba sanadood baan tegay waxaa jooga looma baaha dibadda in laga keeno haddana kolba beeraha muqdisho ragga jooga oo ardadayda ka mid ah oo PhD soo qaata oo khibraddii leh aa jooga xuseen maclo muxuu ahaa shiruuca abqaali xasan shiruuca waxaa jooga baafo waasaa jooga way yacni waana dhalinyaro wasaarad kasta dad noocaas ayaa jooga mid kale wuxuu nasiib ku leenahay private sectorku shaqooyin fiican bay qabteen xag weliba xagga tacliimta jaamacado fiican baa xitaa ka dhisan waddanka xitaa iminka soo saara professionals marka dadkii waddanka joogay oo u dhabar adagayday baan oran lahaa anigu ha laga dhigo wasiirada anigu advisor iyo waxaa soo qaban kara waddanka ka shaqeeya waa badiya dadku waa dadku waa baahan almost everybody would have one thing and تيجي على تيجي شيء حلو مش يعني بس عادي أو بعد بس إلى إن الله إلى إذا تلقف كل كذا دو إلى أو أن ده عدم كان لنا بلا ونسة قف بوس كيس أقل من يا لون يبايع قف أقل من ساعة شكلي بس كمان يبايع حديث وحديث النبي يقول مبدأ علامة قيامة حكمده somebody who's not fit leadership لون يبايع هذا هو ما بستكاد عسى just ما هو المسلم عملها كل دوت يا عملها ما كل دوت قف فت هنا ليش لو دي بقى سيكتري كذا على وتما كذا على مثلا جو قارنا يعني happens in Somalia كذا لكن قف دو إلى أمر وبطلع يعني أنا غزالي أقول لك قف دو إلى هذا الدكتور بوس اللي يجي يعني لسين كم بطلع شلون على لوجي سينو كحرنا يا حديث في النبي كبير في يوسف عليه السلام ولا أنا هالإيدي وأنا أقول في عن agriculture في دولة that's your field ومد النبي لكن ومد إذا مرة سينا يعني أنا موي سنة لكن هذا حال وقت مساس شاف عيال على أورنا أنا بس طويل كان وقت شيء يقول all that money in إلى family وكذا Somali and then قف كيا البوش قرينا أسي وورن قرينا كي كqualified العقد هايو family كيسي قرابة كيسي وهم أورين كران so بناك تسكب مرايات كيسي ولا ما لها marka dadkaas ay jiraan soo haddaan garano qofku capable ah Soomaaliya ka tirsan isbeera qofkaas in isugu tago oo la mushkilay hadda waa aragteen gabar Soomaaliya laga doortay she's 33 years old statement ay represent garaysa kana waa aragteen Donald Trump had to change his mind marka uu gaaray in wasiir Soomaaliya inuu jiro and community ga doortay qofka uu capable yahay halka adeeg warka ay qabsan kartid wala uu mushkilayna anaga laakiin keena oo كيف كان مش قرينا وعم مش قرينا كي قرابة إنكي هيو دبا قرينا كان إن بوصل نوكي ما كلا تاس عن كتك نوع أو كي جنت أولا أو نوع success نا تقدر مسكالي كإله أنا أفضل أديك ناقم الله ما قاعد لها ما قاعد حد هذا إنسان إنسان أنت عندي هذا ولي إلهي وهكبر إن دولة عسبة نوتي إن الله يلا كربته حقنا مفهسيه وحنا عاد يقول جوين هاي last time فرماجة ممكن تجو 6 months جوي شقة في عمرو قطعي هذا بلاي يعني وقبيل إيو قرن لسه مسكين إنه شقة دي ماشي كسي ولا that qualification أفراد سدو قبيل ونروح كنا سيد إلهي كوجي يتعدى وودم كله قبيل كان إلهي هنا قد تشتري برجي هراء دين ساو بدن بانه ونقول culture بانه بسرعة ونقول لكن كيف على قد تجي دين كيف على قد تجي تذكير والد ولا مكان لعقب على برتاي مركا وحلا حيرنا يا مجتو مركا إلهي وحن كبر يا سيدي يا Soomaaliya كجنة من روح البدني أنا هو وين أنا أقول نقولنا أنا وانا في كيس كيس يقول نقولنا ودن كيني وفي عن إلهي أنا قدي جو كينو
daacada ilaahay noo noqdo guryaheennii halkaasaan waddankeennii aynu wada joognaa innagoo wada caafimaad qabno ilaahay aynu ku celiyay waddankeennii madaxweynahana waan u hambaliyeynaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu shaqo fiican waddankii ka qabto dadkana si fiican oo daacada u noqo بسم الله مقعي ورقي الشيخ بشير أن عاو هالكا waxaa isugu nimid in aan ka hadalno wadankeena iyo dhibaatada haysata iyo maxay u haysataa dhibaatada sidoo adeer adeer maxamed cabdinuur sidoo ka dhawaajiyay waa farsamo xumo sababta ay tahay waxa waaye anagoo laba wabi haysana inaan baryoodano waa ayaan daro iyo baddaas baaxadda weyn leh oo kheyraadka ka buuxa sidoo adeer u sheegay waa anu waa ku ayidsanahay wuxuuna ku daray duco ah diinta inaan laga tegin sababta diinteena horta waa muhim waa muqadas diintii haddaan lagu dhaqmaynin dhibaatadeeda leedahay oo xaqii waxaa ka mid ah diinta lagu dhaqmaayo qofka xaqiisa inaad ilaaliyo kheyraadkaada aad aragtid marka haddaan labadiba aadan u jeedin oo waxa shaydaan uu kuu muuqdo oo qabiilku ma aragti kugu hagaya ama ma aragtay ama gaalo inaad dhegaysatid ama waxaad diin haysan ka amar qaadatid dhibaatadeeda leedahay dowladaha aan soo dhaafnay sida taariikhda lagu hayo waxaa ka mid ah dowladdii aadan cadde 7 sano ee haysatay waxba kuma soo kordhin sida la ogyahay laakiin inteena hadda meesha joogtana dad wax kale uguma ahayn hadda ummaddii waa badatay waa la garaadkeena heer saro gaaray waxaa ku soo xigay dowladdii oo siyaad barre allah u naxariisto run ahaantii nin aada u dadaalay u ahaa runtii aada u dadaalay waddankan horumar la taaban karana waa ku aragnay inkastoo dowladda iska eeda rayd ah xiritaankeeda iska badbadnaa iyo dhibaatadeeda iska badnaa haddana ummaddii nolol iyo amniya haysatay taas markii laga soo gudbay maya taas intii lagu dhex jiro horta waxaa timid in la yidhaaha haweenku iyo rag waa siman yihiin haweenka iyo rag waa siman yihiin maalintii lagu dhawaaqay dhibaatadii ka dhacday ilaa haddeena haysataa waxaa soo haray dowladihii kale oo yaryarka cabdiqaasin iyo cali mahdi ka soo tag carro socota meeshaas waa iska ciida iska socotay bay ahayd waxaa yimidi cabdullaahi yuusuf allah u naxariista asagana in ummadda la isku laayay etoobiyaan ay timid meesha tii ilaahay waana gudbiyey sheekh shariif ay yimid sheekh shariif markuu yimid waxaa dhacday haddana in oo maxay ahaatoy oo diin iyo adduunyo kale iyo rafaad kale ma aragto ummaddii loo horseedo dhibaatadii ilaahay waa naga soo saaray waxaa timid dowladdii xasan sheekh run ahaantii aniga waddanka waa tegay horumar la talaabsan karo ummadda iyada shacbigeeda gaaro dowladda wax ma gaarsiinaan qabaa aniga runtii laakiin waxna waa qabatay alxamdulilah dalka dibaddiisa safaaradihii maxaa la dhahaa federaalka inkastoo aan federaalka kasoo horjeedo isku dir iyo kala qoqob eeba tahayba oo la ogyahayba ayaa haddana ma aragtay uu ku dadaalay si oo ma aragtay beys usoo dhiso runtii beyskii uu soo dhisay 4 sano wax badan beys fiican oo soo dhisay xasan sheekh khayr allah siiyo laakiin waxaa jiray oo cawdaytana halkaan ka sheegay in dowladdii shacbiga iska warhaynin laakiin amuro lahayn hawsha isaga socotay dowladda xasan sheekh marka aan waddanka ay joogay waxaa yimideen haween fara badan oo dibadda ka tegay oo ahay dad oo u raadinayo xuquuq doon haweenka ah marka anigu arrintaasi waa ka shakiyey marka hore waxaan isiri xuquuqda haweenka loo raadinayo maxay tahay xuquuqda oo ka maqan haweenka maxay tahay haweenku ilaahay wuxuu u sameeyey reerkeeda inay dhaqato rag ninkeeda xaq u leh caruurteeda xaq u leh in ma aragtay xafidato in ma aragtay haddii taariikhda lasii baaro waagii asxaabihii waxaa jiray in haweenku oo ma aragtay ragga dhiirigeli jireen oo allaasi jireen cuntada ka daba qaadi jireen okay war fiican waa dowlad waxaa soo hartay Israel markay ay shiraayeen ragga haweenku way dhiirigeli jireen waxay qaadi jireen buraanburo
naagaa u gashay xabsiga ku dhashay gabadha aqaan agoosta salaad waxay ku dhalatay xabsiga naagu jagadoon ma ahan Israel-kana ka mid ma ahan laakiin wuu carabdhow jiran wuu allaasi jiran hadda waxaa soo haray haween halkan ka tegay caruurtooda ka tegay raggoodii ka tegay barlamaan